dhaxalka taariikheed ee Soomaaliyeed dowladnimadeeda iyo dadkeedaba macnaha cid walba waxay rabtay ku dari kartaa maadaama ay jirin wax la qoraayo oo ku dhisan macnaha cid walba Soomaali loo qadariyay oo taariikh Soomaali wada ixtiraamto ay wada barato aysan ahayn marka su'aashu waxay tahay macnaha jiilkeena macnaha dhibtay saxda waxa ka mid ah qaarna wiilashiisa u sheegeen qaar dadab ka maqlay reerba waxbay meel ku wataan hatta qof Soomaaliyeed yiraahdo meel uu tago Soomaalidiina taariikhda nooshkada yiraahdo laba uu noqonaya waa jiri kartaa yani noocay kale laakiin ani ahaantay laba ima hal qof oo reeris isfaalinayo oo meel u raadinayo boos taariikhda u raadinayo ima qof wareersan oo waxaan iska dhahayo leeyahay hadana hadu shaki gelinayo aan meel wanaagsan ku soo dhamaanay marka jiilka hadda jooga maxaa la gudboon ee ku saabsan taariikhda si guud ahaan iyo dowladnimada ilaan hadaan waxaan ku dhahay taariikhda iyo dowladnimada Soomaaliya yani reer kama foga waa reerku ilaan reerkii wada kulmay acdaada Soomaaliya dad xubno kulmay Soomaaliya marka anaga xubnihii waxaan oo ah qabaa'il iyo reeraan oo ah marka dowladnimadii wali reerkiina adeeg dowladda macnaha way isleeyihiin Soomaaliya hadii loo fiiriyo marka qofka oo jiilka hadda joogo oo dhalinyarada hadda joogto oo wax bartay dalkan wax u tari raba oo wanaag iska shaqeynayo maxaa la gudboon taariikhaas sidaas isu baalmo agmarayo ugu dhax wareersan waa maasan su'aal fiican horta jiil ahaan anaga waxaan la gudboon marka koowaad inaan wax akhrino taariikhdan akhrino sax marka labaad markaan wax akhrinayno inaan caqliga kaashano aadanaha waxaa ku jira qorin aad muhiim qaali ah waa caqligana doorka la siiyey diinteena siisay waa naqaanaa oo qofka maxay ahayd ilaahay inuu awoodiisa iyo rumeeyo waxaa lagu xiray oo la yidhi xujooyina loo keenay laguma khasmo ilaahay naguma khasmo xujooyinkaas marka la keenay caqliga fursad la siinaysa taasna ha ugu gudbo caqliga kaashano midda labaad taariikhdaas noocaasa aaday u midaqsan tahay qalab waxbay ka tiri waa run warburkii kadib jiilkan soo koray waa iyadoo la kala degan yahay soo koray waxaan ku soo dhaxalnay ama u nimid taariikh cid waliba hayba iyadu rag ka dhex tahay iyadu ay ka dhex tahay asad libaaxya ka dhex tahay iyada laga yaabo inay ku nool cid waliba taariikhda in iyadu toosh u tahay iyadu ku ifanayso oo aysan dadka kale muhiim ahayn marka waxaan uga baahan yahay in aan nagoo si mugli u fikirayna caqligana kaashanayna taariikhahaas Soomaali u yaalo idin aan ruuxno waxaan aad ula dhacaa markaan taariikhda ka sheekeynayo laba shakhsi mid weyn oo aan hor fariistay labadaba dadka aad hor fariisan waa ayagu buugaagtooda aad aragto waa muugta waa meesha maxay ahayd Allah naxariistay professor Gandhi iyo Abdullah Mansour oo anagu ayaga hor fariistay si qurux badan wallahi markay caqligayga way qancinayeen dadka kalena caqliga way qancinayaan marka Gandhi waliba si fiican uga sii hadlay arrintaas yaa Soomaali waxa yihiin madir iyo ma aad uga hadlay meelahaas mid marka laga hadlayo Soomaalidu waa meeshan ku dhaw ma diyaarsan in laga hadlo hadii aad tiraahdo qaranka iyo qabiilka waa la isku dhaweyn karaa hadii aad tiraahdo may kuleeyihiin waa isku gubin waa isgubayaan waa isdaminayaan awadooy biyaha isku dhaweyn sax dadka waxayna noo qoshana waa qabiilkii waa sidii sax qabiil waxa laga yaabaa dad ka dhawaatay inay wasaaradda arrimaha gudaha noqon karaan ay leeyihiin si ficilna waxa xaqiiqada meesha waxay tahay qabiil waxa jira dad kale taada wasaaradda wasiirka arrimaha gudaha noqon karaan simba wax ka inta iska deeyay waa wasiirka arrimaha gudaha ma noqon karo qabiilada jirta ka dhawaatay noqon karo wasiirka arrimaha dibadda هذه وحاسكور صح هذا قبلها هيسكن دوينا الولاية قرنك قبيلك هيسكن هيسكن دوين شيل كان ولا وعي وين لوري
gadaalana looga sii ciyaaray maxaa yahay magaxooda marka meeshaas waa meelaan ku dhahay lama jecla in laga hadlo dadkuna in laga hadlo uma diyaarsana cidda soomaalina soomaali waxaa waa la yaqaanaa waa cid walba oo maxay ahayd dalkan degta cid laga saari karo lihi kara anaa kaa soomaali anaa ka xigsan karana ma jirto waxna ma tari mayso taariikh la kala xigsaday iyo soomaalinimo la kala xigsaday waa midda kaleete marka la fiirsho cirdigeena iyo dad meelaha iyo waxaa la yidhaha walow dadbadiida inaan reer guuraan nahay dad reer guuraha iska maxay ahayd isu guuray isu yacni isdhex qaaday marka wax kasta oo na kala fogeyn kara oo soomaali kala fogeyn kara waxaa dunida waxay tara wax kasta oo ummadda kala fogeyn kara dal walba dembiga ka dhex yihiin markana wax kasta oo na kala fogeyn kara oo kale cidda soomaali ma cid ku dhiiran karta anigu kuma dhiiran karo waxaan noocaasana in jiilka la dhaxalsiiyo iyo ma wanaagsan haddii la gaarsiiyo la dhaxalsiiyana runtii wacyigelin badan in laga sameeyo ay u baahan tahay dadka wacyigooda arrinta ku aadanna kor loo qaado anigu qof ahaana jiilka aan dhex joogo waxaan ku idhaahdaa soomaali yacni maxay ahayd dhalashada lama kala xigsan karo mana tari mayso dhalasho la kala xigsan